السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوديال واد سلامتهين سيدو كلنا واد مهدسنتهين وحان إلهي كرجينينا سبحانه وتعالى إن أونغا هايو جروينكا إيو حنوندا أدونكا كسعودا كوا موغدا إيو كوا أن موقنين لبادبا بنا انت أنشاء الله إنغا نسيو فرحاد يا عافماد يو وناك يا دمان بني آدنكا سيدا أدوغنا هاي وحاسي دمانيا xadadkii ama waxyaabihii u dhaxeeyay ummadaha adduunka hadduu yahay xad kala qaybiya oo ah mid dhaqaale mid dhaqan mid hiddo mid dal mid deegaan iyo mid taariikh adduunka waxaa la galay casri cawlama ama globalization oo adduunka oo dhan uu isku milmay ama dhaqan iyo dhaqaale iyo hiddo iyo wax walba adduunka isku milmay mar haddii marka la isdhex galay bini aadamkii iyo aadamihii adduunku noolaa isku awood ma aha dowladaha awood dhaqaale leh dowlada awood sugaaneed leh kuwa awood military leh isku furnaanshahaas marka xadkii dhaqankii iyo hiddihii iyo diintii meesha ka saaray waxaa mar walba ku guulaysanaya ummadaha awoodda leh waxaa laga guulaysanayaa dadka awoodda yar badanaana sida uu sheegay ninkii ahaa ibnu khalduun oo cilmiga bulshada raggii dhidibada u dhigay ah dadka guul daraysta waxay ku mamman yihiin raacidda dadka guulaysta dhaqankooda saa darteed maanta waxay u labisanayaa sida reer galbeedku u labistaan waxaan u hadlaynaa sida reer galbeedku hadlaan waxaan u cunaa saa waxay cunaan waxaan yani wax walba waxaan kaga daynaa reer galbeedka innagoo leh diin iyo dhaqan iyo sooyaal iyo hiddo ka adag oo ka awood badankooda marka haddii la dhaho waxyaabaha isku furmay ee adduunkii wax walba oo kala xadaysnaa oo kala duwanaa oo mafaahiimtii oo dhan baabiiyey cagta mariyey way badan yihiin waxaan soo qaadanaynaa hal wax oo dee adduunka maanta dadku aad ay ugu adaateen oo aad looga hadlo waxaan soo qaadanaynaa netflix ma rabo inaan ku laabto taariikhdiisa iyo inuu soo bilowday 97 marxalad badan uu soo maray bilowga asaaskana waxaa la dhahaa wuxuu ka bilowday ninka iskale ee aas-aasay ayaa wuxuu soo kireystay filimka markuu soo kireystay xilligii uu celin lahaa ayaa waxaa la dhaafay mudduu la yaalay oosan xilligii muun celinin kadib $40 baa ayaa lagu ganaaxay kadib ay farad ku dhalatay warniyo haddaad adiga samaysata ka waran marka 1997 oo 97 ilaa 2007 marxalad buu ahaa 2007 iyo 2016 marxalad kale waa 2016 waa marka uu soo caanbaxay ee adduunka dhan laga bartay ee dadka Afrika iyo Asia iyo Latin iyo Mareykan uu meel walba gaaray way ilaa hadda 2019 aakhirkeedii wuxuu marayay 158 milyan oo qof ayaa ka qayb ka ahaayo akoon uga furnaa Netflix qof walbana laga qaado $12 iyo wax laga qaado marka dadka filimada markay jecel yihiin ee filimada daawanayaan haddii ay dooni haadaan in aad $12 bixiso oo aad daawato malaayiin filim malaayiin musalsal intaasoo wax adduunka wixii la soo jiro dhan ama filimada ha soo saaraan Netflix ama ha ka soo qaataan meelaha kale ama Bollywood ama Nollywood ama Hollywood wixii doona ka soo qaataan waa fikrad runtii aad iyo aad qofkii filimada jecel u soo jeedinaysa $12 iyo barbixi filim aan dhammaan lahayn daawo musalsalaad iyo taxanayaal iyo series aan dhammaan lahayn daawo waa fikrad markii dhinac laga fiiriyo fiican laakiin marka aad marka hore gelayso waan garan karaa waan dareemi karaa in ay jiraan filimo waxyaabo xun ka sheekeynaya wax ama dhaqanka ku xun ama diinta ku xun ama taariikhda ku xun ama akhlaaqiyan xun inay ku jiraan waan garanayaa laakiin waxa fikrad ahaan adiga aad isdhahaysaa waxaa jira filimo adiga aad dooran karto maadaama aan lagu qasbaynin filimo aad dooran karto oo wax walba aad xumaan u taqaana ka madax bannaan ayaad helaysaa haddaad daawato filimo dagaala haddaad daawato kuwa dhaqaala haddaad daawato kuwa siyaasada haddaad daawato kuwa crime iyo jariime iyo dembi iyo waxyaabahaas falalka haddaad daawato waxay doonay ahaato waxaad helaysaa filin adiga sida aad rabta aad helaysaa aragtidaas marka maysan noqonin aragti ka hirgasha Netflix may noqonin annagoo og in waxyaabaha ku saabsan galmada iyo jinsiga badanaa wax walba lagu daro tusaale ahaan qoraalada lagu daro oo filimada lagu daro oo xitaa sheekooyinka lagu daro si ay macno u yeelato waxaa laga yaabaa qorayaal waxaa jira ka sheekeeya mujtamacaad muxaafida oo inagoo kale oo diinta iyo dhaqanka ku dhegan haddana buugta markay qorayaan ooga sheekeeya inay yihiin mujtamac galmadu isu furan tahay dhaqanka isu furan tahay xitaa inay laba nin isu tagi karaan ama naag isu tagi karaan ay isu furan tahay laga yaabo inuu qoro asaga oo ka fikiraya in uu helo buugi aad looga gato sidoo kale maanta dee Soomaalidu waxay ka hadlaan badanaa YouTube-yada oo adiga arkay waa wax haabid ah wax aad u liita oo galmo iyo guri iyo nin ilaa heer aan gaarno nin iyo xaaskiisa ay soo duubaan iyagoo waxyaabo aan dhaqan ahayn ka hadlaya dadka waa Soomaali shalay waxay ahaayeen dad waxa ka xishooda oo wanaagsan qofka hadduu si cilmiya u soo jeedinayo oo ama iskuul uu ka dhigayo ama jaamacad ka dhigayo ama dadkii baraarujinayo taas iyada
kama hadlayo waxaan ka hadlayaa in qofkii wixii uu shaqo ka dhigtaan ka hadlaya taasna waxay qayb ka tahay isbedel badan oo Soomaalida ku dhacay waxaan ognahay shalay gabdho laga yaabo markay banaanka u baxayaan inay khamaar ama go' kaliya xirtaan ama huwadaan ama qaataan ay laga yaabo inay dib ku hayaan ama ceeb u arkayeen ayaa maanta waxay qaadanayaan khamaar yar bay xiranayaan meesha doonaan bay aadayaan si doonaan sawir u soo galayaan bari marka talaabada way sii xigtaa way sii soconaysaa ilaa qofkii waxaan uu madax u saaran uu ka tago oo aan boqol noqono waxa aan daawanayna aan laano qofka ninbaa wuxuu yidhi halays u ahaa waxaad isiisaa masrax ama tiyaatar isii waxaan ku siinayaa bulsho hoggaansan waxa aan daawanayno innaga waa waxaan nahagaya waa waxa aan ku dayanayno waxyaabaha marka Netflix aadka ugu caanbaxay waxaa ka mid ah ani shakhsiyan xasan ahaan aan isaga daayay inaan daawado oo akoonka aan ku lahaana aan isaga xiriisi nihaayi ah oo aan ku noqosho lahayn waxa weeye ma jiro film aad ka daawanayso Netflix oo aan lahayn ama muuqaal galma ah oo faaxisha ama aan lahayn dhiirigelinta khaniisnimada erayada aan isticmaalayo ka raali ahaada laakiin waa wax waaqic ah ama aan dhiirigelinayn khaniisnimada ama aan dhiirigelinayn waalidkii la caasiyo tusaalahaan waxyaabaha ay ku siinayaan waxaa ka mid ah waxaad daawanaysaa film ama waxaad daawanaysaa musalsal waxaa ku jira qof wanaagsan oo edeb leh oo akhlaaq leh oo naxariis badan oo dadka caawiya oo ama dhakhtar ah ama injineer ah ama booliis ah ama xitaa madaxweyne ah ama xildhibaan ah ama qoraa ah oo wanaagsan oo filmkii ku dayasho mudan laakiin qofkii maxay ka dhigayaan khaniis waxay ka dhigayaan qof carruurta kufsada waxay ka dhigayaan qof dadka dila waxay ka dhigayaan qof beenta iyo isdamarinta dhiirigeliya adiga marka aad daawato boqolaalka film marka aad daawato ugu yaraan adu ma noqonaysid noocaas laakiin waxa caadi kula noqonaya waxaas oo caadi bay kula noqonayaan haddii agtaada lagu sameeyo haddii meel ka baxsan lagu sameeyo haddii dibad lagu sameeyo wax oo dhan waxay kula noqonayaan wax iska caadiya oo aan dhib lahayn waxaa ka mid ah muuqaalada mashaahidda ay soo daayaan waxaa ka mid ah gabadh yarba aabaheed la sheekaysanaysa aabaheed marka iskuul aad ama jaamacad aad ama seexo ama wax samee buu leeyahay waxay kula doodaysaa in ay rabto in ay aado boyfriend ay leedahay inay aado ay soo tumato soo raaxaysato waxay doonto ay samayso odayga marka dambe uu yeelayaa adi marka maxaa laga dhaadhicinaya marka teenage ay daawadaan iyo carruur yar markay daawadaan in ay sidaas oo kale u dhaqmaan yaa adiga lagu sheegaya waxyaabaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah gabar yar ama wiil yar sidaas oo kale ah ayaa wuxuu la hadlayaa ama la doodayaa professor ama waalidkii wuxuu ku qancinayaa in aysan ilaahay jirin buu ku qancinayaa in ilaahay iyo jiritaankiisa iyo wujuudkiisa uu yahay wax iska beena oo iska sheeka malawaala ayuu ilmihii yaraa waalid ku qancinaya way doodayaan baa lagu leeyahay kadib waalidkii wuxuu ku qanciyaa inuusan ilaahay jirin halka waxay dhiirigelinayaan ilxaadka iyo diin laawasha dhiirigelinayaan marka hadduu xitaa qofku isku dayo in si taxadar leh oo Netflix u daawado uma daawan karo sababtoo ah film walba waxaa jirta mashaahida qaar oo qofka filmka markuu daawanayo xitaa buug markii la qorayo meelo ay ka soo gali karto way jirtaa yani lama dhihi karo dhammaan buugta iyo sheekooyinka laga saaro sababtoo dadku dhaqan bay leeyihiin hiday leeyihiin sooyaal bay iyaga u taalaa haddaad daawanaysa haddii kale laakiin in daqiiqad walba la soo geliyo oo la soo geliyo film walba la soo geliyo oo meel walba laga sheekeeyo runtii waxayna tusinaysaa in annaga la rabo in la geeyo meel ka baxsan dhaqankeena iyo diinteena iyo akhlaaqiyaadkeena iyo inagu waxyaabaan aaminsannahay waxaa la COVID-19 hadda cudurka adduunka socda waxaa sabab u ah maasuuniyadda iyo illuminatiga adduunka ka jira ayaa waxay rabaan in ay baabi'iyaan xuduudaha siyaasiga kadib markay soo baabi'iyeen xuduudihii dhaqanka iyo thaqaafada iyo diinta markay soo baabi'iyeen waxay rabaan hadda in la baabi'iyo xuduudaha siyaasiga oo la mideeyo dhaqaalaha oo la mideeyo aragtida oo la mideeyo shirkadaha adduunkana hal meel laga hago yaa loo socdaa waa aragtiyaha yaalay ka mid yihiin marka ma dhihi karno dhammaan yaa la daawanin hala joojiyo lama dhihi karo laakiin waxaan u baahannahay in aad ogaato in waxa lagu duulayo uu yahay maskaxdaada qofkana wuxuu la mid yahay waxa uu daawado ama uu akhriyo ama uu aaminsan yahay oo la mid yahay haddaad maanta akhrido buug wanaagsan aqligaagu wanaagsanaanaya haddaad akhrido buug xun aqligaagu xumaanaya haddaad daawato filimo ibaaxiya oo galmo iyo jinsi iyo gay iyo khaniisnimo iyo ay ka buuxdo xitaa haddaad adigu samaynin familkaagu samaynin wax caadi uu kala noqonaya sidaa darteed inta dhalinyarada Netflix ku taxan waxay u baahan yihiin inay dib u eegaan ama ay dib u fiiriyaan ama ay dib ugu noqdaan waxyaabaha Netflix ka daawadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh